lacagta Sacuudiga iyo qoladii lacagna siisaba warbixinteeda waan u diraa warbixintii Sacuudiga loo diray intii laga isticmaalay iyo habkii loo isticmaalana diyaar baan u nahay inaan la qaybsano ciddii rabta kaasina markaa waa lacagta Sacuudiga page-ka ku xiga waa aad iyo aad buu muhiim u yahay waxaa laga hadlayaa dakhligii oo hoos u dhacay nuxurkan ka soo qaadanaya adeer anu waxba akhriin maayo dhegeyso nuxurkan ka soo qaadanayna hadii akhriyaysa akhri warqadina way hor taala nuxurku waxa weeye dakhligii niisha ka baa hoos u dhacay bal dhabar jabka meesha ka dhacay beenta ka dhacay dakhligii baa hoos u dhacay dakhliga loogu talagalay sanadkaas inuu soo galo 156 milyan buu 8 bilood January iyo August aakhirkeedii markaad eegtay 8 bilood markaad inta u qaybso waad arki kartaa bishii intay noqonayso 8 bilood waxay noqonaysaa 104 milyan ayay noqonaysaa maalintii August aakhirkeedii aan joognay waxaana soo galay 112 milyan 112 milyan inay ka badan yihiin 104 u malayn maayo cidaan u sheegay waxa kordhay boqolkiiba 7.7% toddoba boqolleeya ayaa kordhay koror weyn maaha koror weyn oo u dabaal degna maaha laga cadii sheegaya dakhliga iyo halkuu taagan yahay inaad sii kordhisaa waxa weeye benchmark number 1 xabada ugu horeysa weeyaan IMF-ka iyo cid kula hadlaysa ma jirto dakhligaaga hadii intii loogu talagalay noqon waayo marka waxaani adeer waxaan habeen iyo dharaar ka shaqeynaa u soo jeedna weey aad baad u mahadsantiin intiina badan nala shaqeysa aad baad u mahadsantiin waxaan muxuu ahaa u mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada lacagta bixinaysa ee cashuurta bixinaysa anagana mas'uuliyadna saaran waxa weeye habka loo maamulayo idinkuna la maamulaysan inaan isla garanno isla toosno isla hagaajino adduunka dhinac ka raac taasina taa weeyaano dib u dhac ma jiro dibna loo dhici maayo horaa loo soconaya waxbayaan waxa halkay ay marin xoolanay siinne haashe nin libin ka xasiday xeladii waya waxa adduunku qiray mudana gudoomiye adduunku qiray ayaa inagu doonay indhaha faraaska gelin weligaa bay indhaha faraaska gelin jiray Soomaa oo lu teesiidano ya marka taasi halkaas ay maraysaa lacagtaasi waa kordhaysaa sida loogu talagalay way sii kordhi doontaa insha Allah taala gaarashkan waa ka bixi doonaa insha Allah taala meelo wanaagsan baan geli doonaa ya insha Allah taala waa isla shaqeyn doonaa arinta ku xigta waxa weeyaan number 3 oo la leeyahay wasaaraddu si blanket loo leeyahay wasaaraddu shuruucdii bay garan martay waxaan odhanayaa kaliya inta halka ku qoran waa shuruucdii dalka u dhisnayd ee idinkoo sharaf leh aad saxiseen ayaa nahagta oo hogaamisa meeshaan sharciga kaga dhacnay hala taabto shuruucda hoosaadkan ku shaqeynaa tasaraan ku shaqeynaa adduunkan la falgalaa abrin qolo layda FGC qolo layda adduunka dhan baa buugaagteeda soo ugu furanta sharciga samaysan ayaan ku shaqeynaa now arinta ku xigta waxa weeye xafiiska warbixinada maaliyadeed baa layda FRC ya Somali Financial Reporting System Center baa layda afka qalad walaalayaal waxaad ogtiin maanta dadka Soomaalida markaad ka yihiin Soomaalida xawaalad bay ku noosheed lacag dibadda laga soo diro Soomaa 2 bilyan iyo badh ayaa soo gala wadankan ma jiraan anigu oranayaa islaahay aqal Soomaaliyeed oo dab ka shidmo oo aan qof meel joogo khayr qaba aanu lacag u soo dirin xawaalad system baan isticmaalaa waxaad ogtiin xawaaladihii in gobolku dhacay waxaad ogtiin in leeyna yiri baan idin lacagta idin xawilaya ma jiro adduunka dhan waa la socotaan qof waliba qof ku xidhay arrintaasi waxay noqonaysaa national disaster ya سمعت هلا جيب حد عاي الو arrintaasi waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad
dhibaataysa ummadda Soomaaliyeed sidaa daraaddeed dawladdii iska dambeeyey waxay dadaal u galeen in xawaalaheena xal loo helo xal in loo helo ayaa isku dayay maadaama aanay baanan kale adduunkan nala joogin oo lacagtii noo soo xawila in xawaaladaheena aan isticmaalno ayaa dadaal loo galay waxa laynagu waaniyey sida Afghanistan iyo sida Libya iyo sida Lebanon iyo sida Sierra Leone wadanada dhibaatadan oo kale waa inaad samaysataan wax la yiraahdo Financial Intelligence Reporting Center ayaa leeyahay waana la samaynayaa baa leeyahay adduunkii baa isku tagay ka samaystaa la yiri sharci baa la baaskareeyay waxa markaa sidii loo dhisi lahaa ilaa waaniga idin sheegayo lacagii budgetkeeni aad bay u liitaan wax wal oo dawladdu u baahan tahay ma qaban karo waxa dhacay markaa in la yiri saddex arrimood yeela baa la yiri dad iyo Soomaaliyeed mid waxa weeye waxa la wixii muxuu ahaa dhismayaal iyo equipment iyo u baahan lacag badan u baahan international community waxay yiraahdeen annaga ka fargaraynay waxa loo baahan yahay in la dhiso confidential system oo sir ah oo aan cid ogaan karin oo dadku marka xawaaladu soo gudbiyaan reportyadooda iyo baananku soo gudbiyaan reportyadooda aan la taambar garay karin aan dhibaato lagu sameyn karin annaga sameeyay leeyahay laakiin operation cost dadkii shaqa running cost ama muxuu ahaayeen shaqadii lagu shaqeynay ina idinku ka fargaraysaan ama dabooshaan laba arrimood baa loo qeybay markaa waxa la yiri dawladda Soomaaliyeed waa inay budget line ka muuqata oo ku jirta si loo ogaado inaad idinka laftiinu diyaarkiin waxa la yiri xawaaladaha iyo baananka iyo dadka Soomaaliga ganacsatada si loo ogaado inay iyaguna diyaar yihiin in arrinta la dhiso iyaguna qayb ka qaataan ayaa la yiri arrintaasi la soo qaaday oo in badan annagu budgetkayga wax kaga daro 140 baa ka soo ururay 140 kaasi adeer way saxilqaan imika wadna saxilqaan qof Soomaaliyeed lacag bixiyay oo siiyay hay'ad Soomaaliyeed oo la dhisayo anigu qofkii wax ka doono really anigu waxaad u jeedo ma garan xisaabtuna waa cadaan weeye halkii loo baahnaa bay soo gashay halkii loo baahnaa baa laga isticmaalay report qofkii doonayona waadna weydiin lahayd kaliya adeer waadna weydiin lahayd kaliya xiiqan iyo dhibaatada inaga dhaaflay Soomaa waadna weydiin waan ku soo cidii doonaysa reportka waan ku FRC na iyadna halkaas ay ku dhamaatay sheekadu way dheer tahay mirbaa meel laga bedelay wax laga bedelay nuxurku waxa weey lacagta dad Soomaaliyeed baa bixiyay oo aanan doonayn magacyadu halkan naga sheego ayaa bixiyay ogtiin baa laga yaabaa waxay u bixiyeen inay ka qayb qaataan dhismaha hay'adda oo hadhow ku caawinaysa arrinta la yiraahdo know your customer cidaad kula shaqeynayso ogowniyo lacag baa la soo xawilay meel bay tagaysaa kol hadaanan ogeyn qofkii lacagta ka qaadanayay baa la leeyahay de waxba kuma siin karno know your customer meel walba ka jirta taas markaa waa arrin weyn oo inooga baahan awood inaan saarno haddaan anagu budgetkaygu fiican yahay annagaaba waxba bixin lahayn laakiin de ummadda Soomaaliyeed waan u bandhigaynaayo sidaan isxilqaanba account-yada ugu furray maanta ee leedahay lacag soo xawila ayaan doonaynaa inay ku socoto wax laakiin soo gala budgetka Soomaaliyeed treasury account-ka soo gala dadka Soomaaliyeed waxaan sheegay idinka everybody sheegay dib dambe looma isticmaali karo waxaan xaq ahayn dheeraadni doono dhaqankii xumaaya adoo haanta dhabaqsaday ama dhiilka heelsaday dhagdhag iyo haddii sacab lagu soo dhaweyn jiray dhaar baa ka taalo dhici dooni mayso ma dhici doonto adna teelo hay dhigan lacagta halkaas soo gashay waxa alla ogyahay inay halkii loogu talagalay ee aw qoondayseen ee aw saxeedeen inay gelayso dad badan baa dhibaato igu haya because of that you understand waxa loo baahan yahay markaa aan is aamino sida adduunyadu inoo aamintay aan isku aaminay gudoomiye adduunka waxa jira wax la yiraahdo conflict of interest alla wuxuu ogyahay maalintii dhaweeyay halkan la shirayay rag baa halkan iga raacay xafiiskan isku raacnay waxay yiraahdeen gudidana way ku jiraan waxay yiraahdeen mashruuc ayagii arrintii kontaraagan kula lahayn mee ya kontaraagan kula lahayn qadaraaskii kula lahayn mee marka ma qandaraas baad u shaqaysaa baan ku yiri mise nation baad u shaqaysaa waa conflict of interest arrimaha ay weeyaan conflict of interest hada soo madan kara waxa loo baahan yahay in la kala saaro waxa shakhsiga ah eegad
waxa shakhsiga ah iyo in la kala saaro waxa nation ku leeyahay in la kala saaro ayaa runtii loo baahan yahay aniga waxa la igula dagaalamaya waxa weeye mashruuca yagii made I have no project for anybody mashruuca in haya ma jirto mashruuca ummadda Soomaaliyeed baa loo haya ayagaana lacagta iskale ayagaana isticmaalaya habkaad u qoondaysaanna waa lagu soo sameynaya no more no less no more no less okay waxaan u gelayaa markaa qodobka shanaad oo ka hadlaya Sacuudiga haddana Sacuudiga ka hadlaya waan iska dhaafaya anigoo filaya in si fiican loo soo lafaguray asaga waan iska dhaafaya qodobka 6 baa ku xiga oo kala wareejina 3 milyan oo gudaha wasaaradayda ah oo xaq u leeyahay sharciguna iyo ogolyahay ayaa ku jira si aad u ogtihiin ciidanka Soomaaliyeed lacagtii way ka dhamaatay waxaana uga dhamaatay dadkii lacagayna kabayay baa idima siinayna waxay noqotay lacag loo raadiyo madax anagu aan leenahay ka soo wareejiyay madaxoodan ku wareejiyay intaan sugaynay in la ansixiyo tiimaalintii dhow ee 17 milyan ah ragga warqada soo qori way fahmayaan waa majar habaabi weeyaan way fahmayaan waxa meesha ka dhacay way fahmay waa majar habaabi waxa loo baahan yahay marka waxaan sameynay waa bedelay xaqna waan u leeyahay meeshii waan ku bedelay maalintaada saxisaan halkii baa lagu soo celiyay sharciguna waa ogol yahay arrintaas taana halkaas ayaan ku dhaafayaa now arrinta toddobaad waxa weeye banaadir baa laga hadlayaa banaadir iyo lacagta xaq qowlada qaadata laga hadlay banaadir horta lacagta soo baxdo dhan halkan ay ka soo baxdaa banaadir waxa dalkan ku nool yahay ee federaalkan ku sheegayna maaliyadeedu kobtan bay ka soo baxdaa 15% ayay dekada ku leeyihiin 15% direct baa loo wareejiyaa gudoomiye ku-xigeenka weyna la joogaa banka intaas taas anaga noogu dambaysa lacagtoodii weey sida annaan weli xisaab ula gelin gobolada kale ayaa iyaguna xisaabtoodu halkaa ku dhacda iyaga isticmaala googoyn iyo jajabin iyo operations waxaasina waxa anaga imika nadul saaran ma hawsha weli meynaan gaadhin waxaan soo wadna hadii ilaahay dhaa oo idinku nagu caawisaan in maaliyadda dalkan la mideeyo oo dal kaliya nahay budget kaliya halkan la idinku keeno dhowr jeerna waa ka shiray anagu haddaanahay wasaaradda maaliyadda anagu waan sheergareeyo waan ku soconnaa arrinta ayada intaa la mideeyaan ku soconnaa in cashuuraha la mideeyaan ku soconnaa in qawaaniinta hagta maaliyadda maamulkeeda in la mideeyaan ku soconnaa halkaa laakiin weli maynaan gaadhin marka taasina waxa taa weheliya waxa weeye 15 waxa weliya lacagta RCRF ka leedahay ee World Bank ku keeno oo marka mushaharka aanu bixino reimbursement loo sameeyo dib loogu soo celiyo lacagtii aan mushaharka siinay qaarkeed loo soo celiyo lacagtaana barbay ku leeyihiin hadaa aragteen wax zaa'id ah oo ay qaadatay gobolka Banaadir waxa weeye intaas weeyaan 4.7 sida warqada ku qoran percent lacagta la soo celiyo ee NCF ka leedahay ayay taasina tahay page-ka ku xiga waa weeye 15 kaas uu ka hadlayaa waxaan ku soo gunaanadayaa arrinta ugu dambaysaan ku soo gunaanadaya raalli ahaada waxaan u maleynayaa wax walba inaan ka bargareeyay haddana ka bargarayn waa ku soo noqon doonaa laakiin waan ka bargareeyaan filaya waan daboolay halba now arrinta ugu dambaysa aad u quruxda badan in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye ahmiyadii budgetku lahaa lama raacin ayaa meesha lagu soo qoray ahmiyadda budgetku leeyahay lama raacin now haddaa iga ogolaataan mar kale aan u yeedhi doonaa oo iyadana way haysaa warqadda iyadaana lacagaha bixisa habkii exactly aad u qorteen ee committee uu qoray iyada u gudbiyay ayaan raacnaa habkaasi waxa weeye awlawiyaadkeedu waxa weeye raashinka iyo gunayaasha ciidanka number 1 saasuuna markii hore number 1 bal halkan ka gudubneen intaan taanaan bixin mid kala bixinay cidii sheegaysa iyada sheegi macnaheedu waxa weeye haddaad lacag ugu filan haysato inta bood haddaad lacag ugu filan haysato inta bood laakiin markay lacagtu yaraato awlawiya number 1 أول أولوية وحوية إلا بحيو راشينكا يجونوينكا عيدا واحد كحيجا مشاهركا يجونوينكا شغالها ريدكا نمبر 2 سدحاد وحوية جونوينكا حل بهنذا يجولها وزير هذا كوقت بيانا وأديجدا ناو سؤال كلا جرتوا ملكو حد فني والله لها أديجدي لما بحن دي أولوية كيف أساس لما $1 هذا شو $4 اللي جاي بهاي أنت هرد بحين تضمن اللي هي ماي ساسي أرنتو أي سكتاي ناو لعجها اللي بحيي لسي ayaa halkan idinku soo koobaya 8 bilood ee laga hadlayay ee idinku soo koobaya halkan awlawiya ugu horeysa ee raashinka iyo ciidanka
22 milyan iyo 300 kun ayaa la bixiyey mushaharka iyo gulooyinka ciidamada shaqaalaha waxaa la bixiyey 87 milyan dhibic 3 ayaa la bixiyey ka saddexaad agabka iyo adeegyada xafiisyada waxaa la bixiyey 37 kun point 1 dhibic 4 milyan ayaa la bixiyey marka la eego intaa marka la isku geeyo 100% waa boqolkiiba waa boqol wey intaa markaad isku geyso lacagta soo gashay oo ahayd 147 intaasay ku jaan go'an tahay wax kale oo zaa'ida oo soo haray ma jiro waxaan dib ugu noqonayaa oo aan doonayaa inaan waxoogaa ku labo intaanan ka bixin gudoomiye raalli adigoo ah waxaan dib ugu noqonayaa arrinta lacagta sacuudiga iyo wixii kale meelo kale naga soo geli jirayba annaga waxaan door bidnay in la beekhaamiyo waxa loo beekhaaminaya waxa weeye awlawiyaadkeena inaan ka fargaray inaan dabooli karno mushaharka dadka iyo ciidamada iyo cuntadooda in la ka fargaray marka mar walba waxaan eegaynaa waxa meesha ku jira bal hadda bishan soo galay haddaan ku dhaafi karo waa ku dhaafay haddaan ku dhaafi karin in yar baan ka soo garaacnay waxa ogtiin waxa weeye haddaanaydaan ogeyn imika idin sheegay waddankeenan maanta oo aan wax walba iska xidhnay oo inaan dad cusub qoran oo aynaan waxba kordhin oo aan dadkii mushaariga kordhin 20 milyan meelahaas baa inagu filan 20 milyan perhaps 22 milyan ayaa nagu filan lacagtayna soo gashay meelaha inaga soo gasha markaad isku wada geegeyso hadday ugu badato 15 milyan weeyaan 6 milyan waan meel ka keenna Soomaa 6 milyan meel ka keenno ayay tahay marka taa daraaddeed iyo in la tashiiliyo baahida loo qabo ayaan doonaynaa in lacagtaas aan meeshaas ku haysano now waxaan ku soo gunaanadayaa gudoomiye adduunyadu waxay tidhi Soomaaliya way soo fiicnaanaysaa laakiin mar wal oo warqadaas baxdaba damage weyn bay dalkan u geysanaysaa mar wal oo warqadaas soo baxda adeero waraaqahan ka fiirsan dalka ma duminayna inaan duminin ayaynaan dalkan duminin dalkani xabaal buu ku jira xabaashi buu ka soo baxaya ilmaada reeyalo waxa la idiga baahan yahay inaan ka xishoono waxyaalaha qaarkood inaan ka xishoono ayaa loo baahan yahay now arrintan aniga waxay leedahay waa arrin siyaasadaysan waana dhabarjab weyn ayay dalkan ku tahay waxaana weeye conflict of interest dad contract meel ka haysta contract ama negotiation lala galay ama laga baxay oo arag ka marsan oo dibetana aniga isku soo qaaday waxa loo baahan yahay marka anigoo aad iyo aad sharaf idin ku haya waxaan ku soo gabageenayaa waxa weeye arrimaha meesha lagu soo qoray waa mala awaal iyo arrin suuq oo la habeeyey mala awaal iyo arrin suuq iyo ku tiri kuteen la habeeyey oo la isku soo malmalaasay oo la isku soo nanabay oo la soo maleegay oo dibetana internetka la geliyey adduunka kale maxkamadda la iskeen la soo mudo tan oo kale adduunyada kale I can tell you maxkamadda la iskeen la daliyay maxkamad ma leh qabiil ba maxkamad noqday Soomaa okay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh madaxweyne gudoomiye wasiirka dul maray faahfaahiyena eedaymihii been abuurka ahaa ee wasaaradda maaliyadda laga fidiyey warbixintii ay qoreen koox yar oo ka tirsan guddiga maaliyadda wuxuu ahaa been abuur laga been abuurtay wasaaradda maaliyadda waa gaf loo gafay dowladnimada Soomaaliyeed waa dana gaar ah oo la waayay oo lagu dayayo in lagu dhibaateeyo wasaaradda maaliyadda waa dembi laga galay dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda been abuur waxaan u aqaanaa kalsooni darro waxaa been sheega qof aan isku kalsoonayn mucaarad waxaan u aqaanaa qof wax toosiya laakiin mucaarad wax duminaya waxaan u aqaanaa fulay
intaas waa iga arar guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan rabaa inaan dul istaago eedeymaha been abuurka ah ee laga fidiyey wasaaradda maaliyadda iyo dowladda soomaaliyeedba waxaan ku hormarayaa kow dakhliga oo la sheegay 8 bilood ee sanadka hadda socda inay ka warbixiyeen sida la xusay oo xubnaha guddigu ay sheegeen guddiga waxaa hor yaalla xisaab xirkii 2017 hadday gudanayaan waajibaad qaran waxay ahayd inay ku mashquulaan xiritaanka xisaabtii lasoo dhaafay ee sanadkii 2017 si aan u beenino beentood waxaan halkan idinkula wadaagayaa 8 bilood ee tagtay ay warbixinta ku qoreen sidii dakhligu ahaa waxaan u kala jebinay quarter ama qayb saddex bilood ayaa la isu raacay 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadka 2018 oo ka bilaabanaya January March waxaana la ka rabay 42 milyan dhibic 2 41 dhibic 2 waxaanu gaaray 42 dhibic 2 waxaanu soo kordhinay lacag gaaraysa 1 milyan bishii afraad ilaa bishii lixaad waxaana la ka rabay 75 dhibic 7 waxaanu gaaray 82 dhibic 8 waxaan soo kordhinay koror dhan 7 dhibic 1 bishii July waa kuwaatarkii saddexaad ilaa September waxaana la ka rabay 116 dhibic 1 waxaanu gaaray 127 dhibic 2 beeni raad ma lehe waa kaas warbixintii mudane guddoomiye adaan kugu soo wareejinaya waxaan rabaa si aan u soo celinno kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed hamigii iyo rajadii ay qabeen inaan samayno isbarbardhig kale oo ah 5 sano la soo dhaafay oo ka bilaabanaysa 2015 ilaa 2018 8 bilood oo ugu horeysa sanad kasta waa kan halkaas ku cad garaafku wuxuu oranayaa waxaan jeclahay si aan waqtiga u beeqaamiyo mudane guddoomiye inaad naga guddoonto warbixintan asalka ah runta ku salaysan si ay ula wada u arkaan golaha shacabka ee sharafta leh asagoo garaafa wey waa barqo waa maalin cadday waa run ummadda Soomaaliyeed ee ogaada wixii laydiin sheegay dhab ma ahayn wuxuu ahaa been iyo marin habaabis wuxuu ahaa ujeeddo gaar oo la leeyahay waxaan ku faraxsanahay
inaan gaaray meel wanaagsan oo aan ka gaaray dakhliga gudaha. eedeymaha waxaa ka mid ahaa mudane guddoomiye riboodka ku qoran in cashuurtii shaqaalaha ay hoos u dhacday. waxaan leenahay waa waxba kama jiraan. waxaana la ka doonayey 3,233,333 dollar. waxaanu gaaray waa 8 bilood riboodkooda ku cadday. waxaanu gaaray 3,789,550. waxaanu soo kordhinay 556,222. waxaan ku faraxsanahay inaan golaha sharafta leh la wadaagno in ku talagalkii cashuurtii beriga gaar ahaan cashuurtii ay ururin jireen hay-adaha dowladdu iyo wasaaraduhu oo laga filayey 4,448,070 inaan gaarsiinay 3,246,076. waa kadib markii aan la soo wareegin la mideeyey dakhliga uu dakhligu ku dhaco qasnada dhexe ee dowladda oo hay-adihii iyo wasaaradihii gaarka u qaadi jiray dakhliga uu ka soo wareegay ku soo wareegay wasaaradda maaliyadda. mudane guddoomiye, waxaad og tihiin inaan wada shaqayn wanaagsan la leenahay hay-adaha maaliyadda ee adduunka oo ugu horeyso hay-adda lacagta adduunka. inaan la gallay heshiis la yidhaahdo heshiiska deen cafiska Soomaaliya. heshiiskaasi wuxuu odhanayaa Soomaaliya haddaa rabtaan inay hagaagtaan gacmihiina nadiifiya. waxaa la sameeyey shuruudo. shuruudahaas ayaa laga gudbaa. waana shuruudo loogu talagalay in lagu nadaamiyo hay-adaheenna maaliga ah. kii koowaad heshiiskii labaad ee SMB-ga oo ah markii dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre aanu ugu nimi SMB2 waxaanu ka gaaray oo aanu dhammaystiray oo aanu dhammaystiray 17 shuruudood oo halkaas ku cad oo dhammaantood ay keenayaan hufnaan maaliyadeed iyo kalsooni lagu kalsoonaan karo hay-adaheenna maaliga ah iyo wasaaradda maaliyadda. kii labaad oo hadda dhammaadkiisu uu dhici doono ama dib u eegistiisa la aadi doono bishan December 1 dib u qiimeynna lala ku samayn doono wuxuu ka kooban yahay 18 dhammaantoodna waa la gaaray. waxaana la ka rabaa bisha March inaan geyno, laakiin ka hor ayaan ku baasay. dhammaan waxay caddeynaysaa, waxay markhaanti ka tahay hawsha wanaagsan ee ka socota wasaaradda maaliyadda, dowladnimada wanaagsan ee dalkeenu qaatay. intaasi markay dhacdo su-aasha waa weydiin doonaa golaha, laakiin waxaan rabaa inaan sheego markaanu intaa gaaray, markii wixii tirada badnaa wasiirku sheegayay la gaaray oo ay ka mid tahay shuruudahan aan sheegay inaanaan deyn qaadan oo deyn lagu lahayn dowladda, inaan mushaharaadkii bixinay,
in qof walba oo maanta mushahar dowladda ka qaata uu leeyahay akoon u gaaro oo qof aan wakiil uga ahayn, in la raacay hanaankii miisaaniyadda loo ansixiyey ee prioritiska siduu wasiirku sheegay, in la ururiyo dakhligii oo uu ku soo dhacay hal meel oo ah qasnada dhexe oo uu markhaanti ka kacayo guddoomiyihii bangiga oo jooga maalin walba 12 markay gaarto in dakhliga dowladdu uu ku dhacayo qasnada been low markhaantigiisu fogeeyahay waa kaa guddoomiyihii gudoomiye mudanaya. intaasu markay dhacday warbixinahani waa warbixinihii ay qoreen hay-adda adduunka lacagta iyo bangiga adduunka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya maaliyadda ee adduunyada u qaabilsan. kalsoonidaasi waxay keentay in IDA oo ah International Development Assistance oo ah garaan uu maamulo bangiga adduunka looguna talagalay wadamada dhaqaalahooda hoos u dhacay ama burburay ama nugul in lagu kaalmeeyo. Soomaaliya waxaa ugu dambeysay 1988 waa muddo 30 sano ka hor ah. waxaa intaa hareer socotay inaanay Soomaaliya u qalmin oo qaadan karin garaankaas. nasiib wanaag dadaalka ay samaysay wasaaradda maaliyadda waxaa la gaaray in la guddoonsiiyo deeq laga bixinayo sanduuqaas. waxay ila tahay waa hamiga wanaagsan, waa dowladnimada soo hoyanaysa, waa kalsoonida imanaysa ee adduunyadu inagu qabto. waxaase su-aashu tahay 2 qof ama 3 qof oo guddi muhiima ka mid a oo dana gaara leh markay gaari waayeen inay nafadeexayaan. waxay marka su-aashu u taalla golaha sharafta leh inay isweydiiyaan waxaan ku kalsoonaana dadka halkan maanta aad arkaysaan ka hadlay aflagaadada iyo cayda halkan ka jeedinay garan waayey inay hor taagan yihiin golihii shacabka Soomaaliya, garan waayey in ummad Soomaaliyeed dhegeysanayso. gabagabadaan ka hadli doonaa laakiin waxay ila tahay jawaabta golaha waa sugaynaa, tayadaasaan soo hormarsanaya. waxaan ku kalsoonaanaynaa hay-adaha adduunka u qaabilsan la socodka dhaqaalaha iyo maaliyadda. ammaan bay ka keeneen, hufnaan bay sheegeen, horsocod bay sheegeen, qurux iyo wanaag iyo dowladnimadeenna kobaceed ay sheegeen. taasaan xaqiiqsanaynaa, taasaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ee maanta na dhegaysanaya inay kalsooni ku qabaan ee aanay dhegaysanin been abuurka iyo mucaaradada macno darrada. mudane guddoomiye, lacagta Sacuudiga waa laga hadlay. waxaanse halkan ku hayaa oo aan la wadaagi doonaa guddoonka guddoomiyuhuna uu sheegay lacagtii xisaab xirkeedii waa kaas. dowladihii noogu deeqay ee Soomaaliya siiyey ayaa ku qancay. marka waxaan qanac ka sugaynaa nin kale oo dana kale leh. waxaan qanac ka sugaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed, waxaan qanac ka sugaynaa dadka Soomaaliyeed. waa marag ma doonto in muddo hadda la joogo sanad iyo 6 bilood in mushahar $1 aanu ku baaqan wasaaradda maaliyadda. waa lama arkaan aan hore u dhici jirin. waa xaqiiqo dhab ah oo qof been abuur samaynaya aanu qarin karin. waa qorax soo baxday. ugu dambeyntii mudane guddoomiye, waxaan rabaa inaan sheego guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka Soomaaliyeed u qaabilsan gaar ahaan golaha shacabka waxaa looga baahan yahay inuu yahay guddiyo isu dheelitiran, inuu yahay guddiyo aan lahayn ujeedo gaar ah, guddi muhiima
oo la mida guddi oo ah guddiga maaliyadda oo kale inay ku jiraan xubno dana leh oo aan ognahay qandaraasyo laga qaaday iyo kuwo ay doonayaan wasiir nuxurka iyo kuwo ay doonayaan fariista inay ku dhibaateeyaan jihada wanaagsan ee dalku u socdo. wasiir waa mahadsan tahay waxaan ku soo gabagabeynaya mudane guddoomiyaha guddigu waa xisbi buu ka tirsan yahay xogeeyaha wuxuu ka tirsan yahay xisbi buu ka tirsan yahay xildhibaanada golahan ka dhex oorinaya waa idiin jeednaa nidaam baa jira waa idiin jeednaaye joojiya nidaam xumada mudane wasiir guddoomiye ugu dambayntii waxaan rabaa mudane guddoomiye ka fariiso xildhibaan fariiso mudane fadlan guddoomiye waxaan u baahan nahay warigaa qaylo waxba kuma taraysaana jooga waxaan u baahan nahay in raalligelin laga bixiyo gaar ahaan uu ka bixiyo wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda maaliyadda jawaabta ku habboon waa siin kara laakiin waxaan xushmaynayaa wasiir golaha sharafta leh ka daa aduguna talax tagga wixii lagu weydiiyo walaalu ka jawaab waa mahadsantahay gabagabadii guddoomiye waxaan rabaa in si aada loogu fiirsado in guddiyada muhimka u ah golaha shacabka wasiir waa mahadsan tahay golaha shacabka muhimka ah in la dheelitiro waa mahadsantihi uma soo istaageen inaan ka jawaabo aflagaadadii halkan lagu soo bandhigay oo dee cid walbo sida asiga ay la tahay iyo inuu kolkii uu garan waayey inuu xisaabaadkii wixii laga hadlayay ee dul istaago sida ay asiga la tahay oo u hadla yacni oo afka ku ceel baxay waxaan rabaa keliyata in xubnaha sharafta leh aan la wadaago marka laga hadlaayo numbers meeshaan xildhibaan wasiirada halkaas soo istaagay waxay ka hadleen marka laga reebo aflagaadadii laba qodob oo kamid a qodobka shanaad ee qodobka lixaad unbaa waxaa lasoo hadal qaaday wax la xiriira numbers qodobka shanaad oo ka hadlaya 20 milyan haddii aad xasuusataan warbixinteenna waxay u qoreed dakhliga iyo kharashka iyo qasnada dhexe midna kama muuqato wasiirka wasaaradda maaliyadda sida aad markhaatida ka eedeen wuxuu noo sheegay inay taallo istanbul inagu maanan oran wasiirkaa qaatay waa laxada toona maanan oran waxaan dhahnay lacagtaani kuma jirto kama muuqato dakhliga iyo kharashka sanadka 2018 iyo 17 toona qasnada dhexena kuma jirto warbixinteenna sidaas unbaa ku qornaa wasiirkuna asaa ka markhaati kaco wuxuu dhahay waxay taallaa istanbul dhanka sharciyadda marka laga aado marka dakhli dowlo cid walbo aqoon ula ayaa garan karta lama ogolo in 24 saac wax ka badan uu qasnada dhexe dibadda ka yaallo annaga halka aan ka imaanayna halkaasay ahayd waxay ahayd lacagtaasi inay qasnada dhexe taalo rison ay u taalo lacag dowlo muddo 2 sano ah ay u taalo akoon ku yaalla istanbul taas qudheedaa waxay leedahay tuhun iyo shaki iyo suspicion waxaana dalbanay in lasoo baaro halka ay taalo lacagtaasi lasoo sheego maanan oran lacagaa la xaday waa la luunsaday maanan oran waxaan dhahnay bangiga dhexena ma taalo kamana muuqato kharashka iyo dakhliga sanadkii 2018 iyo sanadkii 2017 qodobka lixaad marka aan tagno waxaan dhahnay lacago ayaa laga soo qaaday shirkado waxaana lagu shubaa akoon khaladadaana laga isticmaalo warqadda wasiirka markaa fiirisahan qodobka lixaad baaragaraafka ugu dambeeyay wasaaradda maaliyadda ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay dadaal badan ugu jirtay inay soo celiso kalsoonida dalka Soomaaliyeed ee beesha caalamka qodobka lixaad aan rabo inaan akhriyo qodobka ugu dambeeya page malaha laakiin qodobka lixaad ay ku qoran tahay lacagaha ka hadlayay hay-adda FRC oo wasiirku ka hadlay marka laga yimaado qodobka afraad ay ugu qoranta wasaaradda maaliyadda aniga qodob kale noogu qorneed wasiirku wuxuu xusay in si khalad ah qof ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ugu qoray warqad oo loogu shuba akoon khalada inta aan sheegnay intaasay ahayd laakiin waxaa xusid mudan oon caddeymaheeda la wadaagaynaa guddoonka kana codsanaynaa golaha in loo qaybiyo inaan warqadaasi qorin qof shaqaalaha ka mida balse oo qora wasiirka wasaaradda maaliyadda
sida warqadda tixraaceedu ku caddahay mof 0817 oo uu saxiixay November 20keedii 2017 wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa saxiixay asiga ayaana amra akoonkaas in lagu shubo laakiin waxaa nasiib wanaagaya inuu khaladkiisii gartay qirayne in akoon khaldan lagu shubay balse waxaan beeninayaa in aan lacagtaasi single treasury akoon marna ku dhacin oo lacagtaasi sidii loogu shubo si lamida looga saaray waa mahadsantiin intaas unbaan soo istaaga maadaama waxaa laga hadlaya ay xisaab ahayd wixii kaloo aflagaadaani ciddii tiri unbaa aan ku soo koobayna kama hadlayo wixii aflagaadaa kamana jawaabayn qodobka 68aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah waxa uu samaysanayaa xeer hoosaadkiisa kaas ayaana siinaya ka qaybgal buuxa oo xubnihiisa ah waa arrin dastuuriya weeye xeer hoosaadku wuxuu sheegayaa ilaalinta iyo ku dhaqanka xeer hoosaadku inuu yahay arrin sharci ah guddoonkuna inuu yahay ka laga rabo inuu fuliyo golaha shacabku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda golaha shacabku soomaalida asagu isla xisaabtamaa mar walba xukuumaddu hal xildhibaan oo idinka mid ah ayaa awood u leh inuu intaas soo fadhiisiiyo 276 baana tihiin subax walba haddaad tidhahdaan halkaas waa inay taagnaadaan awood baa u leedihi laakiinse annaga oo guddoon ah jidka la marayo inuu habraac saxa yahay ayaa nalaga rabaa inaanu idinku dhaqno qofka wax xisaabinaya asaguna waa inuu isla xisaabtamaa jidka aanu kula xisaabtamayna ma soo marnay waa su-aal inaan iska saxno wixii khalad ah oo annaga guddoonka xaggayga ka yimaada ama guddi ka yimaada ama golaha guud ahaan ka yimaada ayaa muhiim ah warbixin guddi marka golaha la keenayo waa inay soo martaa guddiga joogtada ah qodobka 12aad faqraddiisa ga ayaa sheegaysa guddiga joogtada ah wuxuu ka doodaa go-aanna ka gaaraa warbixinada guddiyada ee looga doodi doono golaha ma aanaan soo marsiin haddaan soo marsiin lahaynna haddii muran ka jiro halkaasuu ka soo bixi lahaa waa gaf annaga guddoonkaa naga yimid idinkaana idinka raaligelinaya qodobka 2 warbixinta guddi soo gudbiyo qodobka 62aad faqradda 2 waxay sheegaysaa waa inay ku cad yihiin magacyada xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay warbixinta iyadoo aysan ku qornayn oo aysan ka saxiixnayn inaan guddoonno ilaa hortiina keenno sharci darre annaga nagu tahay waana idinka raaligelinaynaa waxa uu faqradda 3aad qoraysaa waa inay warbixintu waa inay caddayso arrinta laga shaqaynayo iyo xogaha uu guddigu helay waa inay ku lifaaqan yihiin hal xog oo uu guddigu helay iyo hal lifaaq ahoo warbixinta ku jirtaa ma jirto inaan aqbalno iyo inaan idiin soo gudbinona sax ma ahayn waxaa khasab ah isla faqradda 5aad waxay sheegaysaa warbixinta waa inay ku lifaaqan yihiin waa inay ku taxan yihiin magacyada dadka lasoo waraystay iyo hay-adaha lasoo waraystay ayaa khasab ah ilaa wuxuu waa warbixin ah guddigu ma asagaa abuuranaya meel waa inuu ka keenaa qodobka 26aad waa 62aad weeyaan waa faqradda 5aad ee cinwaankeedu uu yahay warbixinada guddiyada iyadoo aysan ku taxnayn hay-adihii iyo shakhsiyaadkii xogtaas laga keenay inaanu aqbalno ma ahayn inaan idin hor keennana ma ahayn khaladkaas annagaa qaadanayna guddoonka ah waxaan idiin sheegayaa guddiga maaliyadda oo ah guddiga ugu shaqada badan golaha shacabka waxa weeye dalool baa ka soo baxay aada iyo aada u weyn waxaa taalla horteenna inaan la fulin qodobkii sheegayey in oo go-aanada guddiyada waa in lagu gaaraa cod aqlabiyad ah faqradda 12aad waxay sheegaysaa waa inuu quorum-ku dhan yahay marka go-aan la gaarayo cod qaraar ama go-aan intaba
wareedha raalli aho walaalow nidaamka dhowr mar dambe hadda hadalkayga soo dhex gasho waxaan kuu dirayaa anshax waxaan sheegayaa waxaan meeshan ka maqlayay whatsapp baan ku sheekaysanaa iyo facebook baan ku sheekaysanaa intaanu kala tagno hadda guryaha intaan kala tagno whatsapp baan kusoo codaynaa waxa weeyaan dad baan la xisaabtamaynaa subax walbana waan la xisaabtamaynaa awood baana loogu leeyahay sax iyo khaladba marka wax la weydiinayo maadaama ay ka jawaabaan laakiinse annaguna waa inaan annaguna isla xisaabtanaa guddoonkana lala xisaabtamaa guddigana lala xisaabtamaa annagu whatsapp inay ku codeeyaan xeer hoosaadku ma qabo ma garat hoolal baan u samaynay iyo meelay ku shiraan ma garat waxaanu siinay clerics iyo xoghayn baanu siinay ma garat waxa weeye waa inay shiraan guddoomiyaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay inuu tiriyo quorum xoghayaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay asagoo isticmaalaya xoghaynta shaqaalaha ah in uu ogeysiiyo xubnaha inuu shirkaasi jiro ajanduhuna uu yahay codbixin waxa weeye taas waxaan kala xisaabtamaynaa guddiga in ay shaqaday qabteen iyo siday shaqada u qabteen iyo warbixinta siday usoo diyaariyeen inuu xeer hoosaadka waafaqsan yahay iyo inuusan waafaqsanayn waxa weeye kulan walbay qaataan ajandihiisuna waa qoran yahay xoghayntaa qorta annagana na hoos yimaadaan ayaga ma hoos yimaadaan waxa weeye ajanduhu wuxuu ahaa inta xildhibaanay soo fadhiisatay sida loo codeeyey kulligeed waxa weeyaan annagaa baaritaan kusoo samaynayna haddii ay guddiga ku soo baxdo waa kuwa halkaas isku khilaafayeen hadday ku soo baxdo inay nidaamkii iyo xeerosaadkii ku gafeen annaga guddoonkaa la xisaabtamayna annagaana siinayna jawaabtooda idinku melihdin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed in aan waxa weeye ka raalligeliya haddii dhegtoodu ishaysad dhexdooda ah ay maqleen haddii ay is-eedayn maqleen haddii ay isjiidjiid maqleen waxa weeye golo shacab oo ay ku kalsoonaan karaan ayay leeyihiin oo uu waajib ka saaran yahay inay la socdaan inay kormeeraan hay-adihii waxa weeye fulinta ahaa gaar ahaan kuwii maaliyadda u xisaabsanaa waxaan idiin sheegayaa waxaan ka warqabnaa oo uu guddiga maaliyaddu ka warqabaa transaction waxaa la yidhaahdaa dhaqaaq xisaabeed hal transaction oo meel intuu ka baxo ama hal jeeg inta la qoro oo baxa oo uusan guddigani ogeyn ma jirto $100 ha ahaadee guddigu $1 hadduu soo galana waa ogyihiin fadhigooday ku ogyihiin $1 hadduu baxana fadhigooday ku ogyihiin markaa shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay xoolahooda iyo waxa deeq lasoo siiyo iyo canshuurta laga ururiyo meeshay marto waa la soconnaa annagaa la soconna ilaahay hortiisa wixii ku khaldamana annagaa nala weydiinaya annagaana nimankaas u qabsanayna shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay kalsooni ku qaba golihiina shacabka xukuumaddaasna annaga ayaa dirsannay annagaa kalsooni siinay la xisaabtankoodana annagaa iska leh waxa miidiyaha iyo warbaahintu ay faafinayso oo marka oo la yidhaahdo kelmaddii uu hadda guddigu sheegaya ahayd 8 bilood sidaas ma ah ay miidiyuhu qorayaan 42 milyan baa la luunsaday oo la qaatay macnaheedu waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inaanan dib loo aaminin macnaheedu waxa weeye shacabka soomaaliyeed inaysan canshuurna siin weeyo macnaheedu waxay tahay ganacsatada soomaaliyeed inaysan kalsooni dambe aysan ugu qaadin weeyaan warbaahinta xorriyad baa la siiyey laakiinse xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabkani ma uusan sheegin in 42 milyan oo dollar la luunsaday ma sheegin in 20 milyan dollar la luunsaday ma uusan sheegin in $1,000 la luunsadayna midnaba ma uusan sheegin haddii 2018 xisaabteeda laga hadlayo xisaabe xir baa jira oo muddaysan oo sanad walba sanadka ku xigaa la xisaabiyaa qodobka 7aad ee xeeroosaadka yaga ayaa qeexaya waxaan idiin sheegayaa dalkani wuxuu gaaray heer dowladnimo oo laysla xisaabtami karo hay-ado lala xisaabtami karo waalaysan jirinba meel fiican baan maraynaa xukuumaddii waa noo hoggaansantaho waa kuwa halkaa fadhiya annaguna
maadaama aan nahay hay-addii ugu sarreysay ee hubinaysay ku dhaqanka sharciga inaan sharcigeennu ku dhaqanno annagaana laga rabaa inaanu eedda aan leennahay inaan qaadannaana laga rabaa hortiina aan ka qiray in aan warbixintan dalool hadduu leeyahay annaga ahayd inaan qabanno ma ahayn guddigu inuu hortiina maanta ku murmo ma ahayn raalligelin baan idinkeeda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkana meel fiican buu marayaa hawl adagoo miisaaniyaddii 2019 noo taalla ansixintii iyo ka doodistii waxaa noo taalla xisaabo xirkii 2017 yaynaan waxaan jirin ku mashquulin yaynaan hay-adaheenna isku burburinin yaynaan kalsoonida ka qaadin shacabka soomaaliyeed intaas waxa weeyaan warbixintan habraacii uu xeeroosaadku qorayey annagu ma aanaan soo marsiinin waxa weeye umana dhammaystirna xubnihii soo gudbayana kuma qorna dadkii lasoo waraystana kuma lifaaqna waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo kuwaramkiisana waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalena xisaabtamayna ciddii mas-uuliyaddaas iska lahayd saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadis dambena ma leh hal daqiiqoo dambe oo golahan looga khasaarinaya warkiisana ma jirto saasuu ku xiran yahay kaas